culimada gobolada galbeedka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal oo intooda badan maanta iskugu yimiday shir ay kaga hadlayeen doorashada Soomaaliland ayaa maanta waxa ay ka soo saareen bayaan 5 qodob ka kooban iyadkaasi bayaanka ayaa waxa akhriyay Sheekh Maxamed Cabdi Shiine amnigu inuu yahay qiimaha badan ee nolosha bani aadamnimo waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Xamuud Siilaayo iyo laamaha amniga ee xukuumadda ee kala duwan in ay xil weyn iska saaraan amniga gacan adagna ay ku qabtaan cid kasta oo isku dayda inay amniga khalkhal geliso culimadu markii ay eegeen sida xadka ka baxsan ee loogu takrifalayo hantida ummadda waxay soo jeedinayaan in israafka la ilaaliyo oo aan lagu takrifalin hantida ummadda culimadu markay aragtay rabshadaha iyo qalalaasaha iyo anshaxumada xoogga badan ee dhac socota qaab ololaynta qaldan ee xisbiyada qaranka waxay talo ugu soo jeedinayaan guddida doorashada qaranka inay joojiyaan qaabka qaldan ee ay u socoto ololayntu ay culimadu ku baaqayaan ilaalinta akhlaaqda wanaagsan ilaalinta cadaaladda iyo sinaanta bulshada in laga dheeraado wax kasta oo dhaawacaya akhlaaqda wanaagsan keenayana akhlaaq xumo sida isdhexgalka gabdhaha iyo wiilasha da'da yar ee u kala ololaynaya axsaabta qaranka inaanu qofku ku xadgudbin ama xisbi aanu ku xadgudbin xuquuqda uu leeyahay qof kale ama uu leeyahay xisbi kale waxaa muuqata oo dhex socota rabshada ay ka mid yihiin guryaha oo la shiido astaamaha xisbiyada oo la beegsado waxay culimadu ku baaqayaan in qof kastaba xaqiisa uu ilaashado xaqa qofka kale ku leeyahayna uu ilaaliyo qaabka ololaynta xisbiyada qaranka ee saddexda ah waxaa ka muuqata qabyaalad cad taasoo dhaawac weyn u geysan karta amniga waxaan ugu baaqaynaa madaxda saddexda xisbi qaran ee waddanka Soomaaliland iyo ciddii la shaqaynaysaba inay ka fogaadaan ku ololaynta magaca qabiilka iyo hadallada xanafta leh ee la isku marinayo media waxaan u soo jeedinaynaa kulana talinaynaa golaha odayaasha dhaqanka sida ugaasyada suldaanada boqorada garaadada iyo cuqaasha inay u istaagaan doorkooda oday dhaqameednimo oo ah islaaxinta ummadda iyo samakatalinta ayna ka baxaan kana tanaasulaan ku milmidda ay ku milmeen siyaasadda iyo ku ololaynta magaca qabiilka waxaan u soo jeedinaynaa guddida doorashada qaranka oo aanu leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baqa mas-uuliyadda aad u haysaan ummadda ilaaliyana cadaaladda iyo sinaanta iyo xilka ay idiin igmatay ummaddan Soomaaliland Axmed Zohri shabakada caalamiga ee Burma News magaalada Burma